ma malaynaysaa inaad internetka taqaano? dabcan haa, qof kasta waa aqaana internetka. Social media ayaynu isticmaalnaa, websites kala duwan ayaynu booqannaa, balse ma ogtahay in badankeennu aynaan internetka u adeegsan awooddiisa ugu sarraysa. xitaa dadyooga inta badan isticmaalaya internetku way miskarayaan waxyaabo badan. muuqaalkiina maanta waxaynu soo qaadanaynaa tips kor u qaadaya adeegsigaaga internetka, kuwaasoo kuu safgaran kara waqti aadna kuga caawin karaa. soo dhawaad dhalinyaro. muuqaalkan kagama hadlayno basicska internetka iyo adeegsigiisa, waxaanu kaga hadlaynaa qaabab advance ah oo internetka u adeegsan karto. dhammaadka muuqaalkana waxaad ugu yeelanaysaa in internetka u adeegsato qaab aadan filayn inuu macquul yahay. aynu ka bilowno searchda. waa marka wax ka raadinayso internetka. marar badan waxaa dhacda in marka wax search garanayso lagu soo bandhigo results aan muhiim ku ahayn amaba ku khuseyn. haddaba si aad u hesho resultyada ugu fiican ee aad raadinaysay, isticmaal in-text. tusaale ahaan in-text Python programming, in-text data analytics. searchkani waxaa inoo raadinayaa Python meelaha keliya lagaga hadlayay data analysiska. midkan kalena wuxuu inoo saarayaa results aad specific u ah. waxaynu qoraynaa site, kadibna siteska aad rabto, tusaale ahaan siteska educationka oo .edu ay adeegsadaan. kadibna file noociisu yahay PDF ama document ku saabsiisan artificial intelligence. intaas haddaynu kaga nimaadno searchda, waxay noogu xigaa browser profiles. dad badani way adeegsadaan browser profiles, balse laga yaabo inaysan si buuxda u fahamsanayn macnaha ku dhex jira. browser profiles waxaa lagu talagalay in lagu kala qaybiyo browserkaaga, sida qaybta la xidhiidha shaqadaada, barashada iyo waxyaabo la midka ah. mid kastaana waxa uu nagu shaqaynayaa sidii browser caadi ah oo kale. hore ma maqashay browser command line ah? browserka Linux waa mid ka mid ah browserada ku shaqeeya command line-ka, adigoo adeegsanaya sidii browser caadi ah oo kale. haddii aad haysanaysana kala soo deg terminaalka adigoo ku qoraya brew install Linux. waa markaad adeegsanayso MacBook. haddaad isticmaasho Windowsna si toos ah udima soo degi kartid, waana inaad soo dhex martaa Windows Subsystem for Linux. waxayna soo boqon karnaa Google-ka adigoo qoraya Linux https www.google.com. haddaynu ka hadalno ammaanka internetka, waxaan in badan adeegsanaa VPNs, laakiin waxaa dhacda in applicationada qaar internetka naga cuslaado. sababtoo ah VPNska ayaa noo furan oo xogteennii router ayaa lagu samaynayaa. markaasoo kalena waxaanu samayn karnaa in VPNsku ay keliya tahay inoogu shaqeeyaan applicationada khaas ah, si applicationada aan VPNku muhiimka u ahay xawaarahoodu u sarreeyo. waxaynu sidoo kale adeegsan karnaa double VPN oo aynu hore uga soo tilmaamnay. tekniiga double VPNku waxaa noo samaynayaa inuu laba jeer encrypt gareeyo xogteennii. inkastoo processkaynu marar badan noqdo mid aad culis ka dareemayso browserkaaga, haddana waa mid amni ahaan ka fiican halkaad adeegsan lahayd hal VPN. sidoo kale ma ogtahay inay jiraan emails ka ammaan badan Gmail, waxaana ka mid ah Protonmail ama Ctabler. adeegyadan emailskaahi waa kuwa focus ku saara ammaanka xogta iyagoo adeegsada end-to-end encryption. intaasi kuma eka, marnaba isku dayda in adeegsato internetka IPFS. waa internet decentralized ah, kaasi oo loo adeegsado in xogaha lagu sheekareeyo laguna kaydsado isagoo ka duwan internetka aynu isla maalna adeegsano. tusaale ahaan, websitesku waxay ku geysan yihiin serveris soo maahan. haddii serverkaasi cilad soo gaadho ama down laga dhigo, ma access garay karno websitekaasi. balse markaynu adeegsanayno IPFS, arrinku sidaas waa ka duwan yahay oo xogta websitekaasi wax lagu keydinayaa networks kala duwan. haddii mid ka mid ahi down noqdana, xogtii weli weyn heli karnaa. intaasoo keliyata ma ahan in waxaynu ku adeegsan karnaa inaan ku kaydsanno xogaheenna khaaska ah, innagoo ka maarmayna adeegyada sida Google Drive, Dropbox iyo kuwa la midka. sidoo kalena IPFS waa mid ammaan ahaan aad u fiican. intani aynu kusoo koobaynaa muuqaalkeena maanta. waxyaabo badan oo advance ah ayaynaan weli ka hadlin, iyagana mar kale aynu soo qaadan doonaa haddii aan leedmo. ma jira waxyaabo kugu cusub aad ka ogaatay muuqaalkeena maanta? nagula wadaag qaybta kommentiga. anilaa weyd aad la wadaagto muuqaalkan asxaabtaada. mahadsanid.